إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، sida ka fahmayseen khudbada hore walaalayaal, waxaa khudbadeena ay ku saabsan tahay sida rasuulku sala allahu calayhi wasalam inagu shaadinayo inagu hagayo ummadda islaamka iyo bulshada qaybahooda baahan gurmadka loo samaynayo. gurmadkaa loo samaynayo waxaa ku hagaagaya xidhiidhka addoomuhu ay la leeyihiin ilaah iyo xidhiidhka iyagu dhexdooda ay leeyihiin. wuxuu intaas sii raaciyay nabigu calayhi salaatu wasalaam, qofku tabasalka u weyne naftiisa u fidinayaa inay tahay aqoontiisa oo uu kabciyo. wuxuu intaas ku dambaysiiyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, abtirsiino lala soo taagnaado annaga iyo aniga inaanay waxba anfacay oo aan horumar iyo camal lahayn. waa xadiis jaamica oo albaabada khayrka aynu ka gelaynee faraha badan ayaa uu muujinaya qaar ka mid a. si kale haddaynu dhigno, waxaynu arkaynaa diinteenna wanaagsane samxada ah macaanida inoo tilmaamayso qofku intuu ifkan joogo si uu u helo xaqa ilaahay uu ka doonayo iyo xaqa ummadaba xuquuq baa saarana waa inu xaqiijiyaan. xuquuqdaa qofka saaran, ilaahay cibaadadiisa ka saaran, waxqabadka ummadda ka saaran inuu xaqiijiyo. xuquuqdaa hirgelinteeduna waa cibaad, taa dadka u qabanaysa, naftaada u qabanaysa, iyana cibaadooyinkay ku jirtaan. daliilo aada u fara badan oo qur-aan iyo xadiisba leh ayaa inafaraya. wadciga iyo xaaladda aynu maanta ku sugannahayna waynu garan karayna. oo dad xoolo dhaqataa xaaladday u liitaan waa markay kalin taagan yihiin. marka baaqaasi waynu isku celcelinaynaa, hadday tahay dadka dabadda iyo hadday tahay kuwa gudaha iyo qofka wax badan haya iyo qofka wax yar haya. kawliisa waa inu noqdaa ka qaraabadiisa xil qaada ee la dadaala. dadkuna had iyo jeer marxaladan oo kale miyiga ku nooli, kuwo badan oo dee magaalada midka miyiga mid ka badan oo haystaana ku jiraaye meel walba qof baahan baynu ka hadlayna. warwarkaa ku badan, laakiin addoomuhu ilaahay bay leeyihin inay ka quustaan maaha ee iskaashiga waa inay la socotaa baryadii. huwa aladi yunazilu lgaysa min bacdi maa qanatuu wayansuru raxmat. ilaahna wuxuu roobku soo dejiyaa markay addoomuhu quusteen. markay quusteen ay leeyihiin kontonkiibuu dhaaf oo 80kiibuu maraya wixii ay soomaalidu kuli jireen. waktigaasu ilaahay u furayaa buu imanaya subxaanahu watacaala. nabi maxamed bule calayhi salaatu wasalaam, man nafasa kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyaama. qofka qof dhiban wuxuu doonaya hala dhiban, qofba arrin u dhiban, qofba aqoon u dhiban, qofba adduun u dhiban, qofba itaaliya wax loo qabto u dhiban. qofka dhibaato haysata qof kale ka dulqaada ee ka fududeeyo haa ka haynaadu nafta kaa dhibanaa, maalinta qiyaamaha kurba weyn oo haysato ilahay ka dulqaada. yaana cibaada waa cibaada, waa shuruudii ijtimaaciga ahayd ee bulshada. maalinta qiyaamahana dadku uu iska wada kurbaysay oo farajkay ka warwarsay. wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qaybta labaada xadiid, qofka qof mucsirahoo dhiban u fududeeya yasara allahu calayhi fi dunya waalaakhira. adduunyada iyo aakhirada labadaba ilaahay loo fududayn. dhinacuu doonaba culays ha ka saarnaadeen. qofkan culays baa saaran muslimka ah. wax sharcigu u amaanaydaad ku saaciday maha qof xumaan doonaya oo wuxuu u ciishan yahay si xumaan doonaya laguma saaciday. laakiin wax sharcigu u ogolya ayaa laga saaciday oo dhibaatadii laga dulqaado. ilaahayna adduun iyo aakhiraba qofka u fududaynaya bu nabigu calayhi salaatu wasalaam. ummadda islaamku waa ummad jir keliya, iimaankoodaa walaaleeyey. marka qayb ay ka muuqata cawrada asturideedu ka hadlay nabigu calayhi salaatu wasalaam. waman satara musliman satarahu llahu fi dunya walaakhira. qofka qof muslimahoo walaalkiiahoo cawra uu ku arkay ashuran. cawradu maaha ta jidhka oo keli, laakiin cawrada dhegta iyo cawrada sharafta dhaawici karta wey. waa qof aan caadaysi ahayn oo xumaantii caadaysanina simbirraxa ka dhaca ayaa uu asturay
إلهي ما أسطرية الدنيا دي آخرة نقول عليه الصلاة والسلام الدنيا دي إلهي وقوة أسطرية آخرة وقوة أسطرية أسطرنا سجلنا فكرة بإذن الله تعالى وسيوا لنبي عليه الصلاة والسلام أنها كاشك برشدة يستطير في ولا المسلمين تكور لما وحي والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إلهي وحكوها ولا يكتراون إنه أدور في الساعي يسكر التاغو إنت أولا في الساعي يسكر التاغي مضو وأمر أن اسكم مغنين أو اسكم مقام وأمر اسكو الوزن أو اسكم الكرين حديث كان ليس زمنا وحكراته عليه الصلاة والسلام علم غير هذه السيد لوها الجنة أعلمها لا يتكوى فما يمي قيمها لوها لوفها بكريا إنه الوقت أقول له وحنك وحسي عليه الصلاة والسلام طريقة تكتب إلهي إنه لهي سنة القصارى وذكر ووقت إلهي القصار سمع الدار إلهي نسكار والقصار سمع إلهي جمع كل قصار ومن أطاع فيه عمله جمع إلهي القصار كيف تفضل القرآن عليك ومن أطاع فيه عمله لم يسع به النسب وقت هذه عمل كيف يكتب مليون في المال السفر يصاب نسب كيف أول أكثر فروجي لما يبلغ الله عليه الصلاة والسلام قربضة يدي باسدة تاقى قيامات وحكم تيجي بقاية مصورا كالله ويكوي تاني نصوصنا إلى هذه وقوة رمي تصموا من كهينة بإيمان رميت إلهي رميتيها أيها ربكم رميتنا يا دي باسدة تلقى آخرة جوبتة فكاسو كتبتي يا قرابة يا صور ولا وحي فرج وقرنا قول كرامة وكنت داريا نبي محمد عليه الصلاة والسلام في الماء وكبر حياتين كهلقا ونبي ونبوك وشارين لهي صدق كثر القارة يوقف عمل كالسمية مقارنة كلية وكثي ورمي وحديثي صحيحة عائشة يولد ست قارة سنة يحشر الناس كفاتا رواتا غرلا قالت قيامات في وحل صور رؤيا يقول قاوة ووحي لقد بدينه سارين أو كبلا كيف كشران كبا لا يأتي سبحانه وتعالى بركي كبا يبقى كبلا إيمانية إلا قلت لها الوحوية ويا عائشة رضي الله عنها وقال هكا وحي فأكتشيها الدنيا الوقت وكتا وحي في الرجال والنساء ينظر بعضهم بعضا رسول الله رقي يضمر في حالة أميان إستيقي رقي يضمر في إستيقي سيطر إقاويه إميان إستيقي كريني قال الأمر أشد من أن يهمه ذلك عشان هو يتعرفتها إلى يسهم برودة أما لا يسهم مولا أما لا يتعقل من الله عليه الصلاة والسلام أطول بعض وحكم كلام عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين وكان بقوله عليه الصلاة والسلام وهذا خسر مالك يتسب الله يسرتها كالدوران وقال الجنب يسويت لكن مبيد الكيس النقرة يقول يدعو عليه الصلاة والسلام ورحل يوم السوء دويبك ورمي وكانت تقفى لما تيسر حتى زينا ما تقفى وكشع كلها أو ظروفيتيها أو بحنكر إلهي إلهي وحوات شكرا يصرم يضع هاي التاشي ولا الله مسلمين تاعي كقيب تاعي سنما هاي وحفر لإلهي وكرا إلا بس هو كانت إلهي القرآن سبحانه يقول وإن كانت ذو عسرات فنذرة إلى ميسر التوجه وقت بريء أوكي إذا وحدها إنه عائلة وتجي لقولها إلا قد وواجب إلى إلا قد يا روى ما كنت ونكتت إلى